tiknoolajiyadii meel khatar ah ayay maraysaa oo maanta qofka xogtiisa iyo daatadiisa in gacanta lagu dhigo waa arrin aad u muhiim ah oo aad u qaaliya. daatada iyo xogtana maanta waxaa lagu magacaabaa dahabka ama shidaalka cusub. kooxaha hackeriska ah ama burcadda internetka ah ayaana aad ugu dadaala dadka xogtooda khaaska ah in ay mar uun gacanta ku dhigaan iyagoo uga faa'iideysta laba qaab inay qofkii ku handadaan oo lacag madax furasho ah oo baada ay ka qaadaan ama in ay kooxo kale ka sii gataan xogtii khaaska ahayd ee muhiimka ahayd ee uu qofku lahaa. koox burcad ah ama hackeris ah ayaa maalin dhaweeto waxay jabsadeen xogta isbitaal Mareykanka ku yaala kaas oo lagu sameyn jiray qaliinada isqurxinta ah. isbitaalkan oo lagu magacaabo Hankanis and Sons ayaa xarumihiisu waxay ku kala yaaleen magaalooyinka Las Vegas iyo Henderson. isbitaalkan ayaa macaamiishiisii wuxuu u diray fariin u sheegaysa in xog ay lahaayeen kooxo burcad ah ama hackeris ay jabsadeen xogta ugu khatar